gabadhan halkan idinkaga muuqata ujeediin waxay soo gashay barnaamij gabar live ku jirto waxay ku dhahday waxa u baahanahay qof aan nolosha alla wadaago just simple su'aal la weydiiyay waxa lagu dhahay qof nuucee raadinaysaa adiga single ma tahay waxay tiri aniga single ma yihi waa lay qabaa okay waxay tiri marka ninkaaga aawal waa la weydiiyay waxay ku tiri aniga ninkayga uu xanuunsan yahay isbitaal uu ku jiraa mid uu ka soo baxayana uma eko siyaas darteeda waxaan rabaa ninkaas uu si dhimanayo ma ahane qofkii bedeli lahaa macnaha waa nin dhan oo nool xanuunsan isbitaal ku jiro qofkii lagu bedeli lahaa aa la sugayaa naagtii oo live ka wadatay way yaabtay way naxda shooga qaaday dadka commentiga soo qoraya way naxsan yihiin sababtu waxay dhahday ninkan xanuun waxaa haayo uusan kasoo laabanaynin waxaa iskugu darsamay xanuun iyo da aa iskugu darsantay xanuun iyo da ayaa iskugu darsantay horta muuqaalka noo sii deynayaa kadib aan isku soo laabanayna Wait, how long is your daughter? She's 9 months. So where's her father? What's going on with you guys? He's in the hospital, so yeah, he's very ill, so I'm looking for like a stepfather. nugta ee markaas ay garabka ku wadato aa la weydiiyey waxay dhahday 9 bilood ay jirtaa aabaheedna isbitaalku ku maqan yahay waxaana u raadinayaa step dad oo ah nin adeer u noqdo oo ayada markuu mataqaanaa oo saaxiib ay noqdaan ama ay isguursadaan dee gabadha adeer u noqonayo anaga meesha adeeraa ka dhahno ayaga step dad ay dhahaan step dad loo raadinayaa su-aashaa sii wadanina marka Were y'all not together when he went to the hospital? Yeah, we're still together. Wait, okay. weli asoo isbitaal ku jiro ma mataqaanaa ma wada nooshihiin oo dad isqaba maa tihiin markaas waxay dhahday haa oo mataqaanaa dad wada nool aan nahay Okay. I'm looking for like just in case. waxay raadinaya dhahday just in case lacala haddii oo siibto ninkan haddii oo siibto qofkii lagu bedeli lahaa la raadinaya macnaa iimaanka muhiim waaye macnaa iimaanka waa shay qaali ah markii la dhahayo gabadha markii la furo oo muslimadda ah intii cuddadeeda ka dhamaysanayso ninna ma shukaansan karto ninna lama hadli karto markii cuddadeeda dhamaysata kadib ee nin iyo sheekadiisa bilaabi kartaa intii cuddadeeda tirsanayso haddii nin mataqaanaa la sheekaysato ama mataqaanaa shukaansi bilaawdo dambiga ku jirtaa micne laakiin meeshan asidoo qofkan la furin isbitaal lagu jiro oo weliba serious situation lagu jiro ama mataqaanaa aan nin la shukaansanayo aan nin raadinayo just in case loo yaa macnaa A stepfather just in case. Just in case if he passes away? Right. Are you serious? Yes, Kendra, you have to have one in the chamber. Kendra, come on now. But wait, shouldn't you be holding him down? Why is he in the hospital? I can't go to the hospital because it's like, all the hospitals are shut down. naagti ayaaban naagta mataqaanaa naagta oo wareysanayso ayaaban way yaaban tahay macnaha waxay dhahday lacala hadduu dhinto maanin raadinaysa macnaha hadduu dhinto maanin raadinaysa adi anyways waxay dhahday aniga isbitaalkana ma booqan kari ninkaasna xaaladiisa aad ay u adag tahay da ahaanna waa iga weyn yahay asiga 66 jir ma dhalan mataqaan 60 jirtaa 60 uu jiro 60 iyo abafo jira calaa xaal ninku waa ku deeyay da ahaan iyo mataqaana marka nin walbo oo da ah haddaba ogow naag kula fac ah oo aad isla dhimanaysiin haddaad dhimatidna maalmo ama bilooyin ama sanado kaa dambeynayso niyo raadso ha isku raadinin naag aad ka weyn tahay almost 30 sano ama 20 sano ha isku raadinin oo markii aad isbitaalkii gelaysa maahane dhib ma bahayba ayada just lacagna ugu dhimanaysaa lacagtaadu ay qaadanaysaa xaqna u leedahay midda labaadna waxay tahay ma walwaleysa sababtoo nolosha markaas ay cusub tahay ayada nolosheeda labaad waxay galee phase 2ga ayadoo garoob ah oo lacag haysato ama at least guri looga dhintay ama lacag looga dhintay bangi buuxa looga dhintay nolol fiican way sii galaysaa laakiin haddaa mataqaanaa islaantaada
yaraan isku guursatiin ama markii hore taba da'daad camala xulatid waxa waaye waa si wanaagsan isku tagaysiin macnaha hal meel marka adiga aad baxdid maalmo kadib ama sanad kadib ka soo daba baxee haddaa dhibatid nin raadinayso haba raadaysin muxuu haddii la rabo laakiin sidii loo raadinayo aa kala daran adoo isbitaal ku jiro hal raadin ninkii lagugu bedeli lahaa وبعدين سلام على من يهو إيمانكنا ومهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته